الله وبركاته. انت هنا الموضوع عنه قرين فيصل كفتكي سوى أقول لهاي بلشي سنوى أقول لهاي ومعارض وناكسن معارض كوا مراد أتكدا وطور بلش هذا كل شيء جياه مركا مرول بدلشيسا ونسولوين وايا مركونا تصور يا هوي هل كان مراد إسكاه جاتشيا وقادنا لكن مرورك وقلديا أمان ورهين ويرسحنا واتكوبادي وحنكسو قاضي هوشن ويري ومور هيان حزب كلميه بود بيدو كرشيان بهيانه تذكر حوري كبحينا تباريسو مور هيان تاكو مرة عسرين وركا كوير waxaan jeclaan lahaa inuu iyaga iyo gobolada waraysto waxa xukuumadda kulmiye ka qabato waayo xilku dawladdu saaran yahay dadkaana waxay ka hagrateen ma jiro qorshe dhow oo imika lagu qoodiyo waxay dawladdu bixiso wax tijaarteena iyo dadku soo bixiyaan waxayda loo doono intii tamar ah mid lagama hagran waxaana aad weydiin kartaa goobaha iyo gobolada iyo degmooyinka wixii kale loogu dadaalaynaa qorshe guud oo qaran waynu ka yeelano waxaan u saaray guddi la yiraahdo ka soo kabashada dadka abaaru tabaaleeyeen oo dhaqaale xog loo urusay iyagana waxa laga rabaa hadda meeshii daran inay hore u bilaabaan hawshoodii oo waa la hayaa waxa kale oo ay ku jira qorshaha xukuumadda imika iyo xisbiyada mucaaradka soo socda hadii ay dalka ka warhayaan iyo dhammaanteen aqoonyahankeena iyo waxgaradkeena inaynu ku wada galno in hadii cimiladu isbedeshay oo dhulka aan ku noolayn ilaahay maaragtay roobkii ku yareeyay in aynu ka fikirno si dadkan u noolaan lahaa ee xoolaha loo dejin lahaa ee biyo loo heli lahaa ee loo heli lahaa saadaal hawada ah hadba siday waxay yihiin qorshahaana xukuumaddu waa ku maqan tahay aqoonyahankuna waa ku maqan yahay gudiya dibadba wixii waxgaradna wuu ku maqan yahay faysal waxaan u maleynayaa waa nin aad u wadana jecelo inuu isaguna aad iyo aad ugu maqan yahay taana wixii kale dhaliila xisbiyada mucaaradka way haagsan waa hawshada waa dhaliilada waa qaadanaynaa waana saxaynaa waxay noo sheegaan waxyaalaha wuxuu yidhi waxay sheegaan waxaasaanu qabanay xukuumadii waxaasaanu qabanay haddii dee la sheego wax la qabtay waa waxaa rasoo dalka hore ugu maray laakiin waa inay wax run ahaada markaynu wax qabsannona faan ma aha waajibkeenu baynu qabsanno waynu isxusuusinayna waxaan leenahay marka dambena aynu kasii badin hawsha maalan magaalada Laascaanood anigu waxaan joogi jiray sanadkii 1978 oo jiideedu dhan maray ilaa ingiriiskii ilaa maanta waxaan u maleynayaa wadada shiino dhisay caasimo madow laamida mooyaane waa la isixi doona 3 halka waa nimo waa joogay waxay la tahay laamiyo 5 sano ugu dambeysay ayaanu bilownay ama toddoba sano u dambeeyay maanta Laascaanood waxay leedahay 15 kiiloomitir oo magaalada dhexdeeda loo laamay dadweynaha iyo xukuumadda ayaa ka wada hawl qaatay dawladda hoose dawladuhu dadka inay hawl geliyaan maalkooda iyo maskaxdooda ay sugayaan wax lagu qabsado waajibkooda weey marka maanta waxa la shacbiga reer Laascaanood degmada Laascaanood dawladdeeda hoose dawladda dhexe aqoonyahankeeda iyo taajirkeeda dhammaan way soo tagnado waa guud aan wadaanahay faysal waxaan jecelahay soo dhexmaro halkan waxa la dhisayaa iskuulka shiragaab oo boodina oo imika dib loo cusboonaysiinayo oo insha Allah dhawaan noo dhamaan doona waxay noo socdaa isbitaalka Laascaanood oo la dhisay dhowr 45 dib cusboonaysiin maanta lagu bilaabay oo ay ku baxayso lacagta loo qoondeeyay 3 milyan iyo $1 waxaanay ku tiri iskaashi aynu iskaashanay haddaynu nahay shacabka gobolka shacabka degmada dawladda dhexe dawladda hoose markaynu caqligeena isu geynay hogaaminta dawladdu dadka xoogooda isu geyso kuwa iyo kuwa weyn baynu ka samayn doonaa waxa kale oo aynu wadnaa markaynu Laascaanood qura eegno biyaha Laascaanood oo dhibaato badan inaga qabsatay oo in badan aynu kulba meel isku daynay oo inta badan biyo macaan aynu weynay oo haddana mashruuca ugu weyn ah in Laascaanood imika sida qorshaha saanku wada meel oo dhaxaysa dhowr iyo 30 kiiloomitir ilaa 40 kiiloomitir in biyaha looga soo qaado oo qorshaheedii adduunkeedii bar loo hayo oo la wado insha Allah wuu inoo hirgeli doonaa
kaar qaadashada maanta waxay ka mid tahay borosaskii ama geedi socodka aynu ku doonno horumarkeeda ee intan iminkaanu sheegnay in libilaabkeedeeg inuu 5 sano soo socotay dambe helo kaar qaadashada maanta waxay ka mid tahay geedi socodka aynu doonayno nolosha aynu maanta joogno tuko wanaagsan inaanu dhisno xisbiyadu waa inay la yimaadaan barnaamijyo anfaca dadka oo wax u tara oo hiraadiya halkay maanta joogaan dhinac walba meel ka wanaagsan inaynu ku gaadhno xisbiyada umaynaan samaysaa yooyoota iyo aragti gaaban iyo kursi ku fuul iyo hebel baato bari baa lagu doortay magaca ku hel waxaasi tala ma aha xisbiga waxaa ku jiraana isna wuu islu goynayaa ummaddan wuu goynayaa waxaynu ka doonaynaa kaar qaadashada waxaynu ka doonaynaa kaar qaadashada inaynu berita codayno oo codaynta maxaynu ku falaynaa waxaynu dooranaynaa madaxdii berita dalka hogaamin lahayd oo dee dadka kaarka markaa codaya qaar badan baa iska neefisa waxay korayaan ma arnaga daa waxbana dooranmayna kuwii hore oo waasaan dowlad kasta oo aynu soo martay walaalayaal haddaynaan xaqiiqada iska elitiray waxbay qabatay 73 maalintii halkan laga qaaday golayaashii u horreeyey ee Soomaaliya ee laga qaaday halkan Laascaanood ee labada gole ee guurtida iyo wakiilada laga xulaayay iyo maanta Laascaanood maanta jaamacad may lahayn hudheelo dhisanna may lahayn hudheer yaroo qura jiray dadkana dukaanada furaano way farakutiris bay ahaayeen shirkado waaweyn oo sool ah oo caalamka ka shaqeeya dalka oo dhanna may lahayn dad markaa barakacay oo in badan xamar ka soo kacday oo wada faramaran oo meel taagtaagan baynu ahayd marka laga bilaabo Laascaanood bari iyo galbeed Soomaaliland oo dhan maanta alxamdulillaah dadkeena oo adad hal abuur leh hadday dhaqaale tahay hadday suugaan tahay hadday siyaasad tahay hadday nabad tahay dadkeena oo hal abuurku ku badan yahay darteed waxaynu hore uga maray xagga dhaqaalaha waa dhaqaalo inoo qaybsana oo dadka ma wada gaarin laakiin dad hal abuura oo Soomaaliland oo gobol walba waxay sameeyeen shirkado waaweyn oo lagu faani karo oo dhaqaalahoodana qaranku leeyahay oo qaranka wax u tari doona marka hogaamin fiican iyo amni fiican iyo talo fiican loo helo waxaynu abuuray 60 sanadood hal abuur nabadeed oo aynu maanta ognahay halkaynu ka soo bilownay nabadgelyada 1990 markii aanu soo nimid cabdulqaani allah u naxariistay burco ee nabadda uu bilaabay ilaa maanta odayaal iyo dhalinyaro nabadeenu wadnay walow gobollada qaar ay ku dambaysay maaragtay khilaafaadku oo ay ka mid yihiin gobollada barigu maanta waxaynu taaganahay inaanu jaamacadda nugaareed oo aqoon-yahan Soomaaliland ka soo baxayo oo nabad degan Soomaaliland oo dhammi isugu timaado oo lagu dhisaayo la doonayo in la geedi socodka dhismaha dawladda soo socotay Soomaaliland ay ka bilaabanto kaar qaybinta laga wada maanta Laascaanood iyo nabad guud Soomaaliland أنكر قاسو صنقو دولة دولة محن كرنا دولة دولة واحد غيرها كو إلى أمة الصومال قلب جوده مضيصه إسآمنته إنك أما إن أنت جامعة كبحذي الصومال هذا Laascaanood كلرتي أي كشقين كرتو أما أودجي كرو أو مثلا كرسيرة إيه بورمه إيه هرجيسة إيه عرقابو إيه بران isagoo oo aan dareemin gobolkaas ku dhalatay iyo qolada tahay iyo xageed ka timid iyo abahayo hooyo ay ahayd maabtaan ku ahay maaderbaan ku ahay isagoo mid garab qabanin aqoontiisa iyo kartidiisa inuu muwaadin kasta oo Soomaaliland meeshu gaari karo ee awood isgaarsiinta u gaaro isagoo xora oo aan cidna waxbaranayn soo socodka dowladda aynu doonayna waa inay taahir gelisaa iyo doorashada aynu gelaynaa doorashada aynu gelaynaa waa in dadka Soomaaliland aaminsanaadaan isagoo muwaadin ah inay dawladdiisu ka saarto dhibaatooyinka dhaqaale ee cuqaasheena culayska weyn ku haysa maanta culayska ugu weynaa laga rabay dawlad wuxuu ku dhacaa nimo la yiraahdo cuqaash oo kadeedan oo hawsha u badan la saaray gaara qallimaaya 20 baa ku dhimanaya oday caaqila la oranaya darawalka qolada ahaa gaariga reerkiina ahaa magtii soo ururi
mid barakacay oo xoolay ka dhammaadeen oo xaalkiisa aan lagoon baa looleeyaa magta intaa leeg bixi waayo ma jiro insurance baabuurku qola ma aha dhaqankeennina kuma jirin waa technology soo korodhay waxaa loo baahanya marka gaariga la iibinayo inay la socoto hawlihiisa inuu lahaado insurance ama badbaado ay dowladda gacanta ku haysto oo dadka culayska ka qaada waxaanu u baahanay inaan abuuro dhaqaale iyo dowlad ka saarta odayaasha cuqaasha ah iyo reeraha culayska saaran ee ah markuu reerkii soo barakaco ama agoomoobo ama aqalku ka gubto ama dhibaata dhacdo ayaa tahay reer hebel u tagda caaqilkaaga isma yaaban waxaanu baahnay dowladda kafaalo qaadan lahayd oo aynu dhaqaalaha qaranka ee taajirku hayo iyo dhaqaalaha qaranka ee ka shaqeeya hay'adda bar laga qaado say diintu wadhagayso in dadka la isu jiiyo ay dowladdu ka dulqaado culayska reeraha iyo tabaalaha oo loo helo dowladdii qaban lahayd in qofka tabaaloobay muwaadinkii uu dowladda u eerto waxaynu u baahannahay inaynu ka baxno mashkaladda qofkii bukoodaba inagoon itaalba haynin intii ha loo qaado lacagta intii aynu ugu qaadno wax ee nagaga baxdo sanadkii haddaynu xisaabinno waxaynu ku kari kari lahayd in dhakhaatiirta indiya joogta ee sbeshaliiska ah iyo qalabkoodaba aynu soo gadano somalilan keenno waa markaynu waxayna isu gaysano aynaa qof haan soconno doorashada aynu doonayna waa taa inay inoo hirgelisaa iyo kaarkaynu qaadanayna waxaanu u baahannahay kaarkaynu qaadanayo codkaynu bixinaynaa inuu inoo keeno 7 sano waxaynu kala hadlnaa innaga iyo muqdisho somalilan 1960 dowladnimo qaatay oo isku mid ah ma nabcin soomaali ma nabcin dadkeena soomaali wada nahay dadna waa isu xignaa laakiin danteennii iyo maamulkeennii baa kala duwanaaday hadday iyaga inkaari ku dhacday oo ilaa hadda qarax iyo dil iyo dhibaat ku jirto iyaga waxaanu wax u tari karaynaa in iyagoo golaadaan horta inagoo inaan wax noqonno dabeetana iyagana u gurmadno ooynu wada noolaano inagoo wax isu tari karaynaa caqli ma aha anaa gubanaya dabka ila soo gal dowladda la dooranayaa waa inay si nabada oo garnaqsi ah oo walaalnimo ah aynu ugu kala baxnaa innaga iyo dowladda muqdisho oo gartuna ay caddahay 60kii ku noqonnaa war adaa dhibaataysan waxa kuu taro mijo dhow qamarba barbaal bixiyaaye warba aniga qaran oo maanta taagane haddaan wax kuu taree iga daa rafashada iyo kalarka adhaytada ee dabka ila soo gal ma dhici karaysa meel gubanaysaa guri badbaadinta lagu dugubi maayo dowladda soo socotaa waa inay intaa iyo ka badan bay noo qabataa goormaynu gaadhnaa markaa waxaan doonaa xisbiyada qaranka inay dadka taa u soo horseedaan inay dadka taa isugu ururiyaan inay dadku ay ku tartamaan halkaa iyo halkaasina wax ka qabanayna maanta taanu soconaana waa taa kaarka haddii la qabina kaarka aragti astaanu ka leenahay ma aha kaar qaado oo idooro oo ha igu filaata madaxweyne noqday ha igu noqoto wasiir baa noqday waxaasi fikrad ma aha meel dadka loo wadana ma aha waa in laga fikiraa caruurteena iminka joogtee soo socota iyo kuwa ay dhali doonaan dalkan siday ugu noolaan lahaayeen iyo mustaqbalkii loo dhisi lahaa hadba da'dan maanta joogta ee waaweyn buxul ku saaraya annagu xisbaanta asaan u aragnaa barnaamijkan ku soconaana waa kaa aad iyo aad baa u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu